السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين ونكسن لما مرتي شرفتا مدحدا هيئتها ورباهنتا مدحدا قرده صحافada oo saaxiibada iyo wada joogan kuwa kale qodbadaha iyagu horeeyeen waxaan sidoo kale hambalyo bogaadin u dirayaa iqra ayaan iyo saaxiibka Ustaad Burhaan oo runtii shaqadan qiimaha badan ugu cazumay qorsheygu ma ahayn waad hadli doontaa laakiin waxay ugu noqotay laga maarmaan kaliya waxaan u istaagay inaan iraahdo hambalyo Google Media Production oo sanadkii labaad jirsanaya waxaan ku darayaa oo kaliya waxaan ka mid ahay dadka aan hadalka badnayn ama afgaabinta loo tiriyo sababtuna waxa weeyaan wax badan oo sheego iskuma ogi markina waxa sheegta arabtana waa wax badan inay kugu jiraan production-ka iyo warbaahinta si guud waxay muhiim u yihiin nolosha aadanaha laga soo bilaabo bilowgii qarniyada ilbaxnimada amaba ka hor intuusan aadanaha ilbaxnimada uusan qaadanin islaamka ugu horeeyay islaamku waxa ka sii horeeyay casri islaamnimada aysan jirin taariikhna aysan jirin maxaa la yiraahdaa wax la isku afgarto cilmiga aysan jirin waxa loogu magac daray casrigaasi casri ma qabla islaam amaba waqtigii jaahiliyada dunidu marka production-ka ama media laga hadlayo waxay ahayd waxa kaliya ee fariinta lagu gaarsiiyo bulsho dabba ugu horeeyay bomba ku xigay ceeladaana ku xigtay calalaasa ku xigay kulli waxay ahaayeen media marxalada soo maray tan ugu dambeysay oo aniga iyo jiilka lamid ay ku hana qaadan waxay ahayd wargeys ama radio TV-ga bari dhuxul inoo yimid oo wixii ka horeeyay 700-meeyadii 60-meeyadii ma lahayn radio waxa noogu horeysay waa afartamaadkii kontonkii intaan la soo gaarin radio Hargeysa isna magacyo kala duwan lahaa kii radio Muqdisho ee noogu xiray marka media laga hadlaayo annaga cimrigan uu gaaban yahay haddana maanta markaad aragto sida dhalinyaradeennan gabdhaheena Soomaalideena ay ahmiyadu u siinayaan rajo fiican iyo hididiilo ayaa ku jira media-haasi tadawurku uu sameeyay wuxuu soo gaaray in muuqaalka uu noqdo waxa ugu muhiimsan ee bulshada isugu gudbiyaan daraasadii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in halkii codka la dhageysan jiray maanta loo socdo muuqaalkana kii hadda aan daawanay oo Google Media Production oo kala ahaa uusan ka badnaanin 2 minutes ahmiyada production-ka meesha uu soo gaaray ay marqaati ka tahay 2 daqiiqo waxa la yiraahdo hadda way badan tahay laga sii yareeyo production-kii 1 daqiiqo iyo bar laga dhigo way badan tahay 1 daqiiqo laga dhigo way badan tahay 30 sekiin la marooyaa in fariintaada oo dhan aad ku soo gudbisaa sababtu wax loo sameeyay daraasad jaziira ay qortay waxay leedahay qofka wuxuu wax daawadaa markuu tareenka ka dago oo xafiiskiisa galayo intaas yar isagoo codka aan muhiimad siinayna muuqaalka fiirinaya maanta dibad baxaya dhacay dagaal Itoobiya ka dhacay xamar waxa ka soconaya doorashooyin muuqaaladii markii la isaaray waxa la yiri muuqaal dheer iyo noqonina sequences kala qaadanaya haddana ha noqdaano 3 sekin 4 sekin ishu ma jecla waxay ku daahdo waxay jecesha wax qurux badan oo ay daawataa aad baan ugu riyaaqay filimkii quruxda badnaa ee Google Media Production ay soo bandhigeen waad mahadsantihiin waa u hambalyeynaya waxaan idin rajeynayaa sanado fara badan oo aad ku soo gaartaan aroosyada daraasadaha cilmi baarista goobaha waxbarashada iyo qalin jebinta waxa dheer maanta qof walba wuxuu rabaa inuu archive sameeyo wax tawfiiq ah waxyaabaha dadka ugu baahi badan yihiin waxa kamid ah inaad qoyskaaga u hesho sawiro iyo muuqaalo kaydka ku gala oo 50 sano ka bacdi carruurtaadii ku yiraahdaan hooyaday aabahay ilbax bay ahaayeen albumkaana ii reebeen tiknoolajiyadu way badatay laakiin waxa yaraaday haddana kaydka uu nagu yar yahay Jack Ma nin la yiraahdo Chinese Alibaba aad garanaysaan wuxuu dhahay qarnigan waxa lagu jiraa qarnigii daatada qofka uu ka daata badan yahay uu ka muhiimsan yahay qofka uu ka production badan yahay nolosha iyo saameynta horumarka oo ka horeeya marka in cashir ahaan ay la gashay waa ka xumay qodbadeedii waa mahadsan yihiin Google Media waan ku faraxsanahay ka soo qayb galo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.